gudoomiyaha gobolka saaxil maxamuud cali saleebaan ramaax ayaa maanta ka dhawaajiyay qayladaan abaareed oo uu tilmaamay in ay guud ahaanba xeebaha galbeedka iyo waliba xeebaha bariga ee gobolka saaxil ay ka taagan tahay abaari waxaanu tilmaamay in gobolka saaxil waa abaarta dhinaca xeebaha la wadaago gobolka Saaxil isagoo tilmaamay in loo baahan yahay in ay xukuumad ahaan iyo waliba bulsho ahaanba ka hawlgalaan sidii looga hortagi lahaa abaarahaasi gudoomiyaha gobolka saaxil oo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladiisi kamid ahaa abaareed ayaanu maanta ku dhawaaqaynaa xaaladda abaarta oo ah mid afar jirsatay oo 4 sanadood aanu roob helin ceelashii biyaha ee meelaha xeebaha ah oo qaarkoodna biyo qalaal isu rogeen qaarkoodna ay kuleenba roob la'aan daraadeed sida daraadeed waxaan maanta caddaynayaa anigoo ah gudoomiyaha gobolka saaxil xaaladda abaarta ay ka jirta bariga iyo galbeedka gobolka khaasatan inta xeebaha mid aan laga indhaqarsan karin lana eegi karin markaad halkaa ka bilowday iminka magab markaad joogto beeyo dhaadheer aad marayso ilamaa iyo karin soco waxa weeyaan roob ka daayayna ma jiro dooxyadeediina biyo ma marin ilaa iminka jira kaalmaa biyaha loogaga dhaamiyaa berbere gudaheeda looga dhaamiyaa markii ummadii gambaxo waa ka mid karin baa ka mid ah ceeldaraad baa ka mid ah bullaxaar baa ka mid ah salay baa ka mid ah waxa weeyaan xeebteed siday u dhantahay way ka wada siban tahay inkastoo ay muddooyinkii u dambeeyay roobab teelteel ay ka deen goobo ka mid ah gobolka saaxil haddana abaaraha waxaa laga soo jeegayaa dhinacyada xeebaha sida xeebaha bullaxaar iyo aageeda iyo waliba xeebaha bari ee laasciile ilaa iyo xagal cabdikariim saciid saalax telefishinka caalamiga ah Home Cable TV berbera